بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا ليال مرو يمدن يالبا دمانتين با waxaan ugu salaamayaa salaanta muslimka gaar ahaan walaaladay ummadda reer Jabuuti. barnaamijka maanta waa barnaamij kooban laakiin aan go'aankiisa aan ku gaaray inaan hambaliyo tii ugu saraysay inaan halkan ka soo jeediyo oon u soo jeediyo ragga madaragtay abtiyaaladaya ee shalay toole barnaamijka ka soo jeediyey Jabuuti Toos TV kuna saabsanayd badbaadada qaranka Jabuuti. waana midoo maanta igu horeysa inaan malqo inaan dhagaysto rag odayaala weli dahaan ayna madaragtay dee sidaas una dheereen in ay si daacada si xushmad ay ku jirto inay fikirkooga iyo wixii ay madaragtay ay aaminsan yihiin oo ay ummadda Jabuuti iyo dalka Jabuuti ku badbaadinayaan ay soo bandhigeen. runtii aad baan ula dhacay, aad baan ugu hambalyanayaa. waxaan ummadda reer Jabuuti khasuusan dhammaantood asal reer Jabuuti baan ka hadlayaa, asal reer Jabuuti yaan ka hadlayaa. j'espère que c'est assez clair inaad gacmaha isqabsatiin, in aad dhegaysatiin barnaamijkaas Jabuuti Toos ka soo baxay ee walaaladeen ay soo bandhigeen, ay si daacad u hadleen. khasuusan ninka odaga hogaaminayay waxaan jecelahay inuu ahaa madaragtay Geediyoos iyo Laleer iyo labadii wiil kale Ceelaabe yaan jecelahay iyo Ayaanlaan jecelahay. marka runtii wax badan baad madaragtay aad fahmi doontiin, aad garan doontiin. reer Jabuutiyow dhagaysta. anigu 100 jeer baan ka hadlay, 1000 jeer baan ka hadlay ajradayda, laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin maanta visionkaygii aragtidaydii dhibta haysatay abtiyaalladay ciise iyo walaaladay ilmaadeeraday canfareed khasuusan reer Jabuuti iyo kuwa city ku nool iyo Samaara ku nool duwaaka rag baa u kacay, rag baa miiska garaacay, rag baa mowqifkoogii soo dhiibtay. waa lama huraan. marka fadlan dhagaysi wacan. qoraalkan meesha soo dhigay linka waan dhigay Jabuuti Toos waana heli kartiin. marka laakiinse waa in ay reer Jabuuti labada reerood ee madaxa la iskugu dhuftay 46 sanood maane 150 sanood ee gumaysigii inay dhalinyartaas waxgaradka ee aqoonyaasha ee maanta si daacada ula hadlay walaaladood ilmaadeeradood ciise hadday Jabuuti ku nool yihiin, hadday city ku nool yihiin iyo hadday Somaliland ku nool yihiin. waryaadeen enough is enough. adiga ayaa lagu raa ciise tahay soo maaha. halkeed ku nooshahay? Etoobiyaad ku nooshahay. gobolkee? city baa la yidhaha. warda city aday kuu taallaa. adigu yaa tahay Somaliland. xaggeed ku nooshay? gobolkaas awdal iyaad la nooshahay. Samaroon iyo Saaq aday kuu taallaa. arrimaha Jabuuti ragyow faraha nooga qaada. intii aan soo dhaweynay abaalkaad noogu guddeen 46 sanadood waana ka maanta beerka dhulka ku hayna ee jeefna. waxaad doonaysa marka inaad na dhabar goysiin. marka taas waa enough. way dhammaato sheekadaas. ruwaayaddii iyo hadalhayntii ciise waa ciise nina ma caaro dheero
والشكل سوى دماتي عيسى نهي عفر بان نهي سمرون بان نهي إساق بان نهي قدب وحان مارت عرب بان نهي إلهي ميلبو نقول أبوري هذا ستي بكو أبوري ستي دادا كات كيسو ستي دادا إيمانك قشو إتوبيا لغيرا يوحي كليها دونيس هذا يكون تالله كاكري سومالنا وصاص اللي أنا كرير جبوتي حكم كيجا يدل كيجا أنا كي نوت الله ما أنت سيان تلس كنسكي قاعدة إنه أنا كي نوت الله لكن هنا سوفر قلنا ولا ريال هداتين عيسى يهدر عفرتين وإثيوبيا هنا سوفر قلنا نو داية وبالله توفيق فضلا إلى دقيسته برنامج كاس ما أنت تاريخ هو أفريتون بشمي لبكون يسدح لباتن وحا برنامج كاس دهينا نينا سوق دبي ولكن اكتيفيست سلطان عبد الله دبركالي ونها الجماعية من مدى ومدى جيبوتي قول يا جوبنيمو دقيسوا عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة جيبوتي توس ومانتا برنامج غير عادية ونعادي حين هي متجدين مانتا إذا عاد جيبوتي توس برنامج حساسية وحيسة بدن أيان إذا كلاهي هل كان إذا لو داقي دونا وحا برنامج إلى دادي هنا وأقويان سهل موسى يوحا نرجو ولكن أقويان علاوة waxaan aanu ka hadli doonaa qodobo aad u muhiimsan oo intooda badan ay tahay in wax la saxo si ummaddu u fahanto dhacdooyinka dhacaya dhibaatada haysta reer Djibouti gaar ahaan beesha Ciise ayaanu falaqayn doonaa waxa leeyahay dhammaan taageerayaasha Djibouti toos soo dhawaada waxaan ku dhiirigelinayaa martida Djibouti toos sahal iyo cilaabe waad sheer gareyn kartiin sida mataqaana aad u gaarsiisaan insha Allah muwaadiniinta reer Djibouti meel kastoo ay ka kala joogaan adduunka dacaladiisa وحالي كسر دواء جويتوس مركب ورئيسة نسهل سود وكسر دواء جويتوس. عندنا ما تنتهي. أغلب كسر دواء جويتوس ولا كغالي. أديات بنو دواء وأنا ما تنتهي وحنا هذا علينا يا ولا لين ما دركت كشطية جويتي توس تمام با وسلامة يا ما هذا نوع علينا يا سيدا شرفت له أي نوصل دواء تي بيجان جويتي توس كده هي أمة الريد جويتي إلا غير كأفريقيا. وأنا ما سنت على الإلهي أديكم نوع كم واحد علينا أنت إشارتك سوق جلسي برنامجها وحن قربنا نوه الرياء أن كوب لعبنا مركو هريس وحوي أن جيبوتي هذا كهذا الله وهرين تلك جمهورية جيبوتي أن دبات ودكو بري حالة أو كجرو وحالة أدران أو عكران ما لما ما أنت كسي دم بيساوي كسي دريساون مواطنين ترى جيبوتي قرجوج يا قربجوج بقى بكون دركسينهين دباتراس waxaan doonayay in aan waxoogaa inay si degdeg ah u dulmarno halkan dhibaatadan hadda aan ku jirno ma wax iska imid unba mise waa waxyaalo ay rag ka soo shaqeeyeen qorshe la dhigay bay ahayd bal waxaan rabay inaad noo yar macnaysaan dhibta halkan maxaa na soo gaarsiiyey oo nagu wacan kusoo dhow sahal ama cilaabada kii doonaya cilaabada hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الوقت هذانا مركلا وان السلامي وقت دي
dhibaatadii dhacday 1977 waan ogey dadkay ku dhacdayna waan ogey ha dhacdee laakiinse waxay ahayd dhibaato aad u xanuun kulul bay ahayd ilaa lagu meeray ummad ilaa maantana lagu meerayo waxa weeyaan waxa lagu ilaalsanayaa magac ummadda kulle la leeyahay waan wala leenahay kulle la leeyahay mali idino inuu baale marka ummadaasi kolkii hore xeer baa ka dhaxaynayay walaaltinimana way ka dhaxaynaysay daaq iyo dullo ka dhaxaynayay laakiin 1977 kii ummaddu markii ay gomannima xagga Djibouti gomannima doonayna markii la yidhi ummadii dadkii dhammaan baa dadka reer Djibouti ay u kala hadhin gomannimadii la doonayay sida dadka xitaa waxaa jiray ajanda qarsoona oo dad loogu talagalay markii siday dooniba ha ahaataan markii dhibaatadii la sameeyey waxaa la bilaabay in la yidhaaho heesa la qaado heesaha oo ku saabsanaa la odhan jiray waxaan u digayaa ninkaan wala jirayne yacni waa dadkii nala yaaleen isku magacayn yaan u digayaa waxaan u digayaa dadkaan wala ninka waxay ahayd heestu waxay ahayd waxaan u digayaa ninkaan wala deganaynen wala jirayn marka waxay ahayd minaas amboomaan daragtay lagu qaaday ummadda markay cadaalad darridii ay qaar ka gelgisheen oo la yidhi warragani amaan jabin ilaa maantana 4 reer yay dhibaatadu ay tataa ay ku dhacday 4 reerna ha ku dhacda dhibaatadii waxay ahayd doqonnimadooday ahayd ilaa maantana waa la farayaa labo magacii wax lagu keenayna waa lagu maalayaa meesha laakiin anigu waxaan leeyahay war dadkan 800 baa u hadhay waxa u hadhay 8 bilood 8 bilood ee u hadhay anigu waxaan oran lahaa ummadda la dulmay waa inay diyaariyaan waayo waxa iman doona ku kaloo ka daran oo cadawyi oo leyn doona dadkaas waa inay hubkooga dadkooga madaragtay ay fulinayaan madaragtay dagaalada istaraatiijiga aan bidaafacay waa in imika la diyaariyaa waayo mid kale iman doona diyaar ba u yihiin haddana inay dib dambe u qaataan meesha oo la laayo waxa iman doona kani wuxuu yidhi waa ka adkaado meel baan gaarsiiyey waxa weeyaan afartu way diyaarisay iyaguna way diyaariyeen inay ku noqdaan bay doonayaan raggani meesha 77 kii wala qaatay ku bahoobay markaan waxaan oran lahaa war ummaddu waxa weeyaan tii hore reference ani noqoto in la fikirtiyo ma tii hore reference ani noqoto laakiin waa inaad diyaar noqotiin waxa soo socda dadkiina diyaar ka digtiin kubkiina diyaar ka digtiin waayo waxa uma harin raggan sidoo kale wax ka badan uma harin taasaan leeyahay inta ma ka baxay wala saan ku soo dhow waan dhawahay waa ku mahadsantihiin intaad xaggan igu soo casuumteen ka hor waxaan leeyahay horta asalaamu calaykum askari Djibouti daawanayo alaykum salaam kadib waxaan leeyahay waxa loo wixii wadanka u soo dagaalamay ee taariikhdooda la khabeeyay in laga hadal oo dhowran soo qaadan doona Allah u naxariisto waxa kaloo xilli kasta yiraahdaa kuwa nool ee wadanka u soo dadaalay inuu wali dhimana doonaya caafimaad Allah siiyo waxa kaloo raaciyaa oo yuukinkii iyo haweenkii ka qayb galay xorriyadda Djibouti ee meelna aan wadanka kaga qornay taariikhdiisa kuwana waxaan leeyahay inta nool caafimaad Allah siiyo inta dhimatana Allah u naxariisto in lagu dadaalo magacadooda la soo foqo yagana awasi ahaatee waxa weeye waxaan ka hadlaynaa wax kala qaybiyay iyo ruuxtiga tigshimaal male laakiin reeraha maanta deere waan dulmanahay de ka hadlaynay intaas oo dhan ee soo sheegnay sida taariikhdoodu ahayd ragga aan cambaaraynayna daamba dhaliil aan dhaliilinayno waxay xilli kasta yidhaahdeen war halkeed ku maqnaydeen waa su-aasha dee la isweydiiyo halkeed ku maqnaydeen markay waxaan dhacayeen
رالي هذا ودي طاقة داقيسة هذا هو هالكم في قرف كومبانيا اتفق الوشي والله ضرب فردان بعد قارن mentality problem waxa weeye problem the mentality ayni duwide anu maskala barada election wala sameeyay laha anu waxa la wa carnaval ki maxay ahayn principal sameeyay barada ya shamil section long time ya soo gaay xanaaqsan ursalu xalwa la election ya waxa wuxuu ka hadlay macalin maxaa siiqaar baasi tamaanto sidoo siiqaar baasi tamaanto markay dhacayeen hadda wayna la isweydiiyaa war hadda halkeen ku isay taariikhdoodu ahayd ragga aan ambaaraynayna daamba dhaliil aan dhaliilinayno waxay xilli kasta yidhaahdeen war halkeen ku maqnaydeen waa su-aasha dee la isweydiiyo halkeen ku maqnaydeen markay waxay dhacayeen halkaan ku maqnayn markay dhacayeen hadda wayna la isweydiiyaa war hadda halkeen ku maqnaa ama horaan wari wargeel waa la wadaleeyay waa la kala leeyay ashaala la maalanaya haddaad iiga weyn waa la iska maalanayaa hadda bale ashaala nin uu maalanayo oo dee daaqaagii daaqaysa adiguna halkan fadhidid gorofka kolbanya tifaq lagu siinayo wala gorofka dhan baad u qaadan mentality problem waxa weeye problem the mentality ayni dhawide anu maskaxad baan haday election wala sameeyay lahaa anu waxa dhadaa waa carnaval ki maxay ahayd principal sameeyay baan haday ya shamil section long time ayuu soo galay xanaaqsan ayuu warsalo maxaa lagu hadlaa election iyo waxaan wuxuu ka hadlay macalin maxaafid iyo wuxuu ka hadlay xisbiyo ruuxan ku raani geedgeeso adeero anoo ka wanaagay baan ku wax isku daalin baan ku waxani projet waa projet déjà calculé d'avance on est à quoi ton bout de jara il n'a rien à voir avec kala soo doortay meel la dhigtan waa marionnette wuxuu ku yahay ku sheegaya waxa weeye marka uu qof yiraahdo gouvernement-ga waxaan sameynaysa d'abord gouvernement waa inay iyadu ahaataa légitime soma élection ora joogta ka dhacayde au suffrage universel dadku ay voteeyeen le peuple a voté nimba président noqday ninkii qoriga loo qaato aruurtiisa lagu garab digay aruurtiisii islaantiisii aqalkiisa lagu rasaasay ragga rasaasay qaar baasi tamaanto sida sanad qorto ugu sita oo qoranaya eego buu ahaa ninkii waxa sameeyay anigana iga raba inaan dagaal isaga la galo oo ciisanimo kala sheekaysto taariikhda iyadu isma saxday waa la saxaa wala maqlayaa taariikhdu iyadu isma saxday waa la saxaa kasi lahaana waxa weeye waa kani ka hurda inuu saxo waxa weeyaan haddii lagu yiraahdo maanta aqalkaaga aniga leh oo isku qosushid oo Britain oo aqalkaaga aniga leh oo isku qosushid oo sahan dama busta la soo qaato kalinkaaga la hor dhigto oo isku qosushid saaxunta marka aqalka soo baxay aqal qof lagu xidho gali karta aqalka lagu yiraahdo waa ku habboon tahay tu mérites parce que rien n'est gratuit dans la vie wax gratuit yema jirto dulkeena markaan ka imanayeen dhulkan imanayeen qurbaha imanayeen wax lagu talagalay wax gratuit yema inaan isdabarna soo ma ahayn saacada wadankaaga markaa joogtana waxa weeye mentality-gan ma u firiista kalmada la dhaahdo waa la siiyey iyo waa la qaybiyey war wax lagu siiyo iyo wax lagu qaybiyo ma jirto waxaad adigu gacanta ku haysato c'est que tu mérites haddii ayna kugu filleen waa inaad u dagaalantaa ninka diida sinaantaada sare jooggiisa waa inaad diidaa ood cagaha ka goysaa isuuna weligii u socon anu ma odhan c'est pas moi qui le dis xeerkay xeerka wuxuu yidhi war sinaan ninka kaala sheekaysta waa inuu horta isagoo ogolaadaa ma ogol yahay sinaanta hadduu ogolayn dee maxaad ku daalaysaa ama iska aamuso dee iska haw sinaantii lama ogolaan oo dee sidaas kale lagugu dul socdo ama ka sara kacoo dee qasab ku keen wixii wadalkii qaar baa soo samaystay dokumentarada beena oo textol ka hadlay laakiin waan u dambaynayaa taas hadalkan iga baxay waad maasantahay sahlo
وحوي قضاء أدم يمسن بطالتين لكن محربي إن نحركه دبتا كانتي أن حالتنا أن كجرنو كانتي إن رير الله عنصر دايو كميدة بيش عيسان وحان كان الله يعلمك وأرنك قارهان بيش عيسى قصية marka laga imaadadii Djibouti inta kale dhibaatooyin maanta Djibouti dhibaatada wada haysata maanta laakiin dhibaatada dalka ka jirta sida aniga ila tahay iyo sida taariikh ahaan bad qofkii maskaxdiisu ay salim tahay aan u arkayo waa markii calanka la qaatay cadaal daradii dhacday ayaa keentay in Allahumma salli ala Muhammad garal hada ayaa keentay maanta xaaladan ayaa dhashay dhibaatadan ku jirna maanta sideeba u keentay waxay u keentay waxa weeye aan sidaan u arkayo dadka waa in hortalde runta la isku sheegaa fiican mugti haddii ka lama wada sheekaysan karo lama wada hadli karo waxaa arkaysaa horta dad badan oo leh war wada halgamaynaay ciisanimo aan ku halganno dhibaatada ciise oo wada haysataay ciisanimo aan u halganaa la leeyahay maxay raggan hadlaya in kala hore markaan hadalnay aan ka hadalnay qodobkan isla qodobkan aan ka hadalnay barnaamijku wuxuu ahaa عيسى ووضع عيسى نينا عارا مديرة عدال قورمي ويداسي أي نقطي مد بابعضي قورمي بابعضي أيانا بابي تاس هيد قدب كان ليني مالين تاس on معنيني وما نجوغين مركا مالين تاس إن أنك هذا الله فيسبوك أن ويدي سنو كراسي أما أن ويدي سنو تليس كان معنقا سيدا حق درادة شرع درادة كجوغا إنو نسيو كراسي ونلا شاقينو تاما هي وجدنا أهليني وجدنا وهذين واحد هاي تاني كانتي دبعتنا كجرنا عيسى ووضع عيسى لنا عارم ده بين كدكتي بينيسي ومركي ذلك جمو انت كهرس عيسى ومتبوها سمدات ولا دغمين وتاريخ سبع عم بدو تقاني ودقي قرن السنه اللي بدي دبا لكن سي مركي انا كلا قاطي قفكي يا خلدكي دعي هي ولي لسهريه ولا طيرو اما والله لا يوم يدقيستياش دقيستي عاد جبوتي توس دبعتنا ولا دو ساريه وين الصوت وهذا كيسات بدل او كسو جيدا dadkii dhibaatada geystay oo wali si yaro baqis ah oo dadkii yaro baqisaya oo tixgelinay maxaa ku raad baraarujintan aan wadno iyo midnimadana Ciise u raadinayna dhimatay waa Ciise nimada anagu ma eegana misaalo iyo cilaabo midnimada haddii waxa eegaya waa anaka haddaan qasano oo la qasano oon orano warde waa maxay sida lagu wajin meesha oo ka taga meesha oo dagaal aan bilowno de meeshu way noqonaysaa meel lagu kala tagay noqonaysaa so dabarnimadii la eegaya markaa uma wali anagu aan taagano leena war Ciise nimadii anaka lagu harsantay bal ha roonaano oon ahan eegna walaalihiin war cadaalad darro waxay dhacday markii dalkan go'doonka la qaatay markii dadka u halgamay la laayay markii ma taqaana dadka la bari waayay dhaqankooda iyo taariikhdooda la bari waayay markii dadkan ma taqaana dhibaatada geysay la xisaabtami waayay ee la isku daawaday ee la dayalsaday ama loo bareeray bade in la tixgelin imikana waxaad arkaysaa dad aan garanayba taariikhdooda Djibouti aan garanayn halkii ka soo jeedaan kolka haddaba soo noqdo su-aasheeda doonaya weydiin waxa weeye war maanta haddii dhibanayaashii dhibta lagu hayay ogolaaday iyaga isku wacan second person qasab waayo way ogolaadeen oo way ka didin waayeen laakiinse maanta haddii la abordayo sijaga oo la iraahdo war khalad godob baa jirta dhibaatadaasina way dhacday wartaa horta aan xallino aan isku imanno sida ula dagaalano haddii aan rabno dadkeena xoran way dadka ma xoroobayo maadaama lagu wajiyo la imanaya meeshii kani aniga eedaanaya la war ilama halgamaysi oo aniga hadii soo jeeda oo Ciise ma kala qaadaysa waa 77 kiiba Ciise kala qaadeen 77 kii yeedahay adeeradii awiyaash ma kala qaaday kolka waxa weeye taasaan rabay inaad dadka horta in yar aan dib ugu celiyo mar kale oon iraahdo waa 77 kii wixii dhacay sidii u dhacay ina u yarta taabano ummadan reer Djibouti gaar ahaan beesha Ciise sidii u ogaato kani dhibaatada geysay intii ka tagtay dhashiisu inay ogaato kuwii dhibanahana inay dhashiisu ay ogaato markaas la isla arko warbarta godob baaskay sheeganaa dhibaataas ku geysanay walaalaanu nahay miiska wada fariisano wixii dhacay u dhacay han wada hadalno dadkii wada halgamayay ee baraha bulshada ku jiray ayaaba kulaba
walaalkayow waxay ku leeyihiin warda waqtigii la hadlayo maaha maanta waa wada gaajoonaynaa bay ku leeyihin gaajada ayaa keenay adaa keena gaajada horta garo ina gaajada aad u keentay dowladda taliskan meesha jooga idinkaa sameeyey 1999kii xaqdarro markay ku fuuleen kursiga ku fuulay maxaa nima loo sameyn waayo loola dagaalami waayo maxaad garab ugu siirteen ilaa idinka marka uu mataqaana khaayinimadii iyo khiyaanadii beriga aad bilaamatay uu isagana sii qaaday oo idinkuna la sii wadeen uu idinka bediyey taliskani khiyaanadii aad u qirin laadihiin war waa dhibaataan galnay idinka gobol baan igeysanay waan dalka ku xadgudubnay qaranka ku xadgudubnay beesha ciisiyo shacabka rajulta ku xadgudubnay waan garanay khaladkaygii wixii dhacayna uu dhacay han wada fadhiisano halkii la oran lahaa ayaa lagu leeyahay see u hadashaada baa lagu leeyahay arrinkaas suu idin leeyahay walaalahayo idinka hadalka idiin soo wicinayaa hadalkaas animka aan sheegayo miyayna ahayn dadkani gorobta dhibaatada geystay inay qartaan dhibaatadoodii qirashadaas kama dhigno dadkan baraha bulshada jooga inaan sheegan inay qartaan waxaan ka hadlaynaa dadkan wax bedeli kara dadka siyaasiyiinta dadka oday dhaqameedka ah dadkan damiirku ku hadhay ee weli culamaa udiin leh sheekha shariif leh baan ka hadlaynaa ama siyaasiyiin badhe kuwaasi inay gartaan war khaladkaas u dhacay waana dul saaranahay weli staliskiina waan u hiilinaynaa dulmigiina weli waan u hiilinaynaa kama dhahadli kartiin aamuursa nala halgamayna oo adkaysta wax socodaya waxaas miya tahay bisama sahlo anaa kugu daaya aad buu mahadsan yahay walaalkeen marnaabtigay gejos yaala leer waana mid waa ninkaa malqaayay waa ninkaa dhegaysanayay ragga odayaashaas ay u soo bandhigeen runta ka taagan jabuuti nin baan ku yara khaldamay aan yiri ragga meesha ka qaybgalaya waa ceelaabe waa gejos iyo sahal muuse ninka la yaraa ee saddexaad marka dhammaantood borta halkan baan ka salaamayaa waana mid inta kalena waad dhegaysan doontiin markaad gashiin jabuuti toos laakiin anigu mowqifka yanalka ka sii deynaya waloon u mahad celinayo oo aan leehay runtii markaan dhegaysigii oo dhan aan wala dhamaystay saacad iyo badh ku dhawaad 20 aba 18 daqiiqo 95% waxaad ku hadlayseen 95% oo wax runa si daacadna wada hadasheen laakiin mid baan maaragtay aan iga digayaa walaalayaal oo sidaad barnaamijka baad ku sheegteen sidaad adigu geediyoosow iyo sahlow markaad tirahdeen warde hashaada dee adigu maalo laakiin nin kale inuu kuu maalin waa hadal cad hashaada adigu maalo nin kale inuu kuu maalin waa hadal cad waana mid ood barnaamijkaad ku soo caddayseen waar canfar waa walaaladeeda ruwaayaddii iyo sheekadii cadow canfareed baa imanaya oo jabuuti qaadanaya oo jabuuti xoogaya oo jabuuti ruwaayaddaas way dhammaatay waxaan ka hadlayaa canfarta jabuuti sida loo dulmiyey unbaa ciisaha jabuutina loo dulmiyey samaroonka jabuutina loo dulmiyey isaaqa jabuuti loo dulmiyey iyo carabba iyo soo raacba hadalkaas wuu cadyahay waana mid marka walaalayaal horta inaad maaragtay aad soo jeesateen ood indhaha kala furteen ummadda u furteen dhegaha aad furteen horta warkaas wuu cadyahay waana midoo taliska jabuutina arrintaas way gashay raggiinan odayaasha taliska jabuutina way gasho sida dabeerkaale suldaan cabdulla dabeerkaale looga seexan laayahay yaan inunkuna hurdo la-aan uga baqday raggan weliba aniga dee maaragtay shaabadda laygu dhufanayo waxay ahayd waa cafaariistiyo cafar buu u hadlayaa iyo waa khatar weeyaan iyo waa basaas iyo sheekadaabay ahayd laakiin problemka waxa weyn ininka cabsida raggan maanta qabatay dee rag ciisaa tihiin rag ciisaa yaa tihiin rag gunta ku jiraa tihiin rag maanta ogaaday
wixii ni soo gaaray 7 waa ninka arkaya waa ninka farta ku fiiqay ee yiri ragii soo halgamay calanka ilaahay u naxariistee dhammaantood waa la tirtiray dhammaantood reerahoogii waa la tirtiray dhammaantood magacoogii waa la tirtiray arka waana mid waxaad meesha aad soo dhigteen qorshaa jiray 7 calanka markii la qaadanayay ee Cafar iyo Ciisiyo ay walaal ku noqdeen meesha ay raggan madaragtay madaxa loo geliyay xasan guuleed todoon qorshay wateen qorshayna dhigteen xasan guuleed iyo Ismaaciil Cumar Geelle iyo reerkiisu qorshii halka ku soo gaareen oo maxay warda ciisaanahay warda sheekada madaragtay cadowgana eegay ee anaku hoosan u dhigno kubadda hoosan u heshiino baba ciisa leera ciisa ninama caara dheero walaal baanahay isku dhiig baanahay isku dhaqan baanahay isku diin baanahay ruwaayadii awrka lagu kacsanayay waxay soo socotay 46 sano macnaato nus qarni 50 sano bay soo socotay wixii aad 50 sanadood aad ku weydeen ee ummad iyo dal iyo walaalada iyo reeraha aabaha walaasha hooyada tafiirtaadii la gumaaday anigana lay gumaaday madumalaysaa beritoole Ismaaciil Cumar Geelle iyo raggan inay beritoole ay radaan ogaas Mustafa gandow raggan soo qabta waxay sheegeen waa run waan khaldanay dib baan geysanay ummadda Juutaan dib u geysanay waxbaan aan galafsanay waa run nasaamaxa خلاص نسامحها لكن شيكرو هنقطع عيسى أو دحذينا إنه كبدو كبحن سونو عدوك عفرين أبا عدوك كبدو نوغا قادم ولا ليها روايداس ويدا ماتي إسماعيل عمر قلية تيسكاس ولا ليها هدين يرهدان وحان الله يابتالدي رير جبوتي عيسى رير جبوتي وان الله أصل رير جبوتيا إسماعيل عمر قال لي رقص أنا وشلي وأنا قال الله إسماعيل عمر قال باقو دري وراركي سوق قالايا وراركي سوق قالايا مرة هورنا كعضلي ونيكي ووري اللي سوق قالي داير أحمد فارح قدومي يسكو شاكا مارتي إمر ديغ سوقنا صدنك سنوات قدوميها يا قلنا شي مارتي مرنا شاكتي توبي مرنا شاكتي مارتي سوماليلاند يا iyo kuwa kale in uu Ismaaciil Cumar Geelle qorshe uu soo diyaariyay uu leeyahay mucaaridka dibadda mucaaridka gudaha walaalayaal soo gala waan cafiyay waan kani kale ha waana mido ninkii ka dhacami ururkii fruit cat fruit co fruit laba fruit saddex fruit afar inta aan garanayn fruit co ayuha oo soo galay قدومي وريه مارتي فروت محمد عدويته إلى أنا حرستي كو إستقى صوغلي لبا فروت دو أيوها عدويته مي عدويته ما يستغفروا إن أقول كفلي فروت ومحمد عدويته حدمانكي صوغلي إدنت إلى أنا حرستي فروت دو أيو أقول كفلي السوغنا حدمان أو صوغلي فروت روايو أحمد ديني أو سوغنا صوغلي فروت كاتوايو ومحمد كدعمي وحاسودن on anuguna ku jiray asaasiyaashii fruitka ruwaayadda been abuurka lagu kaxsaday ruwaayad been yaana dhigay Francis Xasan Guuleed Barkhad Gurad ya si madarati kursiga loogu diyaariyo Ismaaciil Cumar Geelle oo noqonaya ninka cadowgii Canfareed ka adkaaday ku guuleystay sheekadu halkaa bay ka socotay waa midaas marka taa maxaan ugu dan leeyahay qorshaha uu wado iyo cafiska uu wado Ismaaciil Cumar Geelle waxaas nama galayso ogaada reer Jabuutiyo ogaada inta banaanka joogtay daacadda iyo inta gudaha ku jirtaba taas way dhamaatay Ismaaciil Cumar Geelle maxaan u soo bandhigay waxaan u soo bandhigay walaalkaygiyo
abtigaygiyo dhammaantiin shantan soo sheegay iyo labadiina adiga islaantan khadra labadiina iyo shantii aan soo sheegay oo ay ka mid ahayeen xasan saciid khayre jaamac cali geele generaal zakariya ya in sheeg muxuu ahaa in ismaaciil tani okay afar iyo ninkii shanaad ee aan sheegayay wuxuu ahaa zakariya xasan in jaamac cali geele in sheeg in ismaaciil tani shan baan sheegay kii shanaad baa iga baxay in isoo qora in haddaad maaragtay aad dhegaysateen kii shanaad shanta mad aragtay inuu cumar geelle kursiga ku haysa waa shan xasan saciid khayre guddoomiyaha nabad sugidda jaamac cali geelle okay generaal zakariya saddex ismaaciil tani afar yaan jecelahay iyo ninkii shanaad baa iga maqan maaha je pense pas maxamed colonel maxamed jaamac maaha yaabe nin kaloo shanaad baa jiray marka maxaan uga jeedaa shantoodaas iyo labadooda waa in ku gargartamaan waa inay ku gargartamaan in maxaad noo dhaafaysiin sideen nabad ku helaynaa dalka sideen ku joogaynaa sideen nafteena u badbaadinaa sideen carruurteeda u badbaadinaa waaba intaa xukunkiina waa kaas xukunkiina waa ka canfar ciise gadabursi isaaq carab reer jabuutiyow xukunkiina waa ka waa intaas inta aan madaragtay aan gacan la iskula tegin waa intaas ma aha waan isku jirnaayo walaal baan nahay reer jabuuti baan nahayo waan wala shaqaysanaynaayo dowlad maaragtay isku dhex baan samaynaynaayo sheekadaas ma jirto waxa weyaan 46 sanadood waxaad qaban weydeen nusqarni 50 sanadood waxaad qaban weydeen beritool aan samaynaynaa xaaraan bay tahay waa qalna cas oo gorgortan halkaas ma jiro gorgortu waxa weyaan sideed ku badbaadaysiin sidee reerkiinu ku badbaadayaan sidee carruurtiinu ku badbaadayaan sideed dhiigga aad gasheen xoolahaad baabi'iseen waxaabaa yaa maaragtay yaan ka wada hadlaynaa waaba intaa waan ii sheego faransiis noqotaya maraykan noqotaya united nation noqotaya xabashi noqotaya carab noqotaya waxaad u yeedhan kartiin oo deed aad aaminsan tihiin waan ogolna laakiin xukun aad ku jirtiin iyo xukun aad meel ka soo geshiin iyo xukun aad wadatiin xaaraan bay ka tahay food clear marka waxaan la hadlayaa abtigay gejos iyo ninkan kale sahal iyo ninkan kale odaga ceelaabe middaas iga qaata middaa iga qaata sheekadu canfar maaha ciisena maaha sheekadu waxa weeyaan waa khaladkii dhacay 770 khaladkii dhacay 99 lanoo xoog sheegtay dib dambe uma soo noqonayo ciise dhul buu leeyahay dhulkiisu waa city kow waa ninka etoobiyaanka ah hadduu beritool etoobiya ka baxayo uu raggaas walaaladii soomaali uu leeyahay DDS anaku waa calankanaan samaysanayna waxaan noqonaynaa dowlad gaar oo soomaaliya aday kuu taallaa haddaad etoobiyanimada ku joogaysidna aday kuu taallaa kani kale ciise ee abtigaya ee jooga somalilan ku nool geerisa iyo bulaxaari iyo lughayo intaasna isagay u taallaa somalilan la joogaya isagay u taallaa ka soo baxya oo etoobiya galya isagay u taallaa laakiin annaka jabuuti ahaan shaqa naguma lidin je pense que c'est clair marka walaalayaal taa ogaada ciisaha jabuuti waxaan u sheegayaa marna gorgortam lama soo galaayo niyo waan khaladnay waxbaan samaynay waar dadkay dileen ma soo celin karaan dhiiggay galeen ma soo celin karaan
carruurtay agoonta ka dhigan ma soo celin karaan aabbayaashooda maya laakiin halanoo saamaxo khadkay dhaaftay qalin cas bay dhaaftay laynkii casaa yay dhaaftay marka wax weyn saamaxaad wax waa la saamixi karaa oo dee ilaahay bay u taallaa annaku miiska waxaa noo yaala 800,000 oo qof iyo 10 iyo 20 nin ee xukunka gacanta ku haya ee reerood ee gacanta ku haya waa intaas marka iyaku markaas naftooda iyo reerkooda iyo carruurtooda iyo xoolaha ay gacanta ku haystaan hadday inay badbaadiyaan doonayaan de waa inay ogoladaan 800,000 inay iyakuna meesha lagu badbaadiyo marka taabaa keenaysa miisaanka inaan anaku wax ka tagno oo aan ogolaano waa mid in ay hadday Djibouti si nabadgelya ku noolaan karaan ay ugu noolaan karaan taas unbaa laga wada hadlayaa laakiin walaalayaal khalad dambe 7 baa ciise la dhacay oo la haday oo qabiil ciisanimo lagu cunay canfarna lagu cunay ummadda Djiboutina lagu cunay 99 yay ka dhacday ma ragga madaragtay curyaankii canfariga la dagaaltamaya fruitka ee yimideen war waxaan cunaan doonaya meelaan seexdaan doonaya madaxa ka toogtay ma kuwaabaa Britoole haddana heshiis kula galaya never Ismaaciil Cumar Geelle iyo taliskiisu heshiiskiisa waa naqaanaa boqol heshiis buu galay aniga nila hadlaaya dhowr jeer buu heshiis la galay maxaana la yidhi heshiisku ya kii madaxa gashaday aamina isaga u taallaa Ismaaciil Cumar Geelle waa number 1 heshiiska siduu kula galayo laakiin waraaqada intuu qaado iyo gudaafada ku tuura xarbi u tahay iyo wuxuu u haystaa isagu faiblesse in qof madartay in blackartia qof aan xawiyaan oo kala iyo isagu heshiiskiisu waa ka isagu had iyo jeer wuxuu aaminsan yahay inuu ilaa iyo korka sare u taagan yahay waa tabti madartay Ali Abdullah Saalax madaxweynaha Yemen saacadii u dambeysay maartay meydkiisa maartay lagu jiiday Sanca waa tabti maartay Qadaafi xoog iyo lacag isku haystay oo u haystay inuu madartay uu ku guuleysanayo ummadda shicibka kacay inuu ka guuleysanayo taas waa taas wayna dhamaatay waana mid marka walaalayaal ma sii dheeranayo kuma sii dheeranayo intaan u soo gal waxay ahayd inaan marka hore u hambaleeyo raggan walaaladeeya ee marna abtaalladeeya ee Gedios Sahal iyo Ceelaabe iyo toute l'équipe de Djibouti Toos inaan u hambaleeyo sababtoo ibaab bay fureen dariiq bay fureen ummadda reer Djiboutina way soo wada eegaysaa dhagaysta waa mid waa takale haddii ku badbaadin karno Britoole Djibouti iyo dalka Djibouti ummadda Djibouti cadow baan leenahay oo doonaya in meerka Djibouti in la burburiyo in la gubo taas waan ognahay inuu la ogaada ila garta abtiyaal ila garta marka wax weeyaan Britoole ina Cumar Geelle iyo taliskiisu iyo sheekada ogaaska iyo gandaha iyo ruwaayada iyo qabiilkii waan wala fariisanaynaa iyo waxa soo dhamaan gacanta naga saaraynaa xaraam bay ka tahay sababtoo wax ay geysteen yani wax aan la soo koobi karin oo bilaa naxariis waliba oo bilaa naxariis marka ma jirto qabiil iyo walaalnimo iyo isku diin iyo sheekada way dhamaatay matno laba mid bay taagan tahay dalka Djibouti seen ku badbaadinaa oo aan taliska uga qaadnaa talisku ma isdhiibayaa miiska ma soo dhigayaa xukunka oo reer Djibouti gacanta ma ka gelinayaa mise wuxuu doonayaa inuu weli siduu ummadda reer Djibouti u kala qaadqaadayay u kala saarsaarayay u kulba gees kula hadlayay inuu ruwaayada ciyaaro waana mido taliska waxba kuma ragga ciisaaday diidaan inuu yaraa canfaray inkan xukunka dhiibaya waa kan xukunki waa kan ilaahay heshiiya waxay ogolaada canfaray war sheekadaas ana gunteeda gacanta ku haya canfarna xaraam bay ka tahay afarta tuuga kula joogta ee magacda iyo ruwaayada aad wadeed wax soconaya ma
tani kale gabadhaada haybado adnika madaragtay ka yimid maaragtay muqdisho iyo Soomaaliya Saadiq John iyo reerkiisa iyo waxaad ururinaysid waan ognahay waan la soconaa ragga ciidamada gelis waan la soconaa ragga booliska gelis waan la soconaa Muuse Biixi raggu ku soo qaado ku dhigay loo cadda waan la soconaa inta booliska ku jirto waan garanaynaa waxa soo dhan waan la soconaa laakiin hore baa loo yiri nin doof ku yimiday ya nin doof ku yimiday dhimasho diyaaroma horu ka baxaya kuwa muqdisho ka yimideen muqdisho ku noqonayaan kuwa Somaliland ka yimid Hargeysana iyo Burco iyo sheeg muxuu ahaa Berberana halkoogiba ku noqonayaan iyo kuwa maartay Boorama ka yimid inuu Muuse Biixi soo qaatay xaraam bay ka tahay marka fadlan si fiican u dhageysta gacanta isqabsada isqabsano waa mid Djibouti waxa iskale ummadda reer Djibouti waa iskale ilaahay ka sokow marka ciiso halkaaga fadhi city ciiso halkaaga fadhi iyo Somaliland Anfaray halkaaga fadhi Samaara Anfaray halkiina fadhiya Eritrea Nadaaya waa mid walaalayaal abtiyo taas hadday noqon weydo oo ruwaayadii ciise waa ciise nima caara dheer soo noqoto te abti baabkii uu furan yahay ibaabku uu furan yahay ciisena ciisu noqon Anfarna Anfar bay noqon akhirtaanka maxaa dhacay dalkeennii ummadeennii baa baabahaya taasna xaraam bay ka tahay walaalada Anfareed waxa la noo daaya wali annaka noo taala inaan heshiino ciise iyo Anfar Samaroon iyo Saaq oo reer Djibouti fadlan Anfaray naga warsuga ciiso abti naga warsuga waa mid nadaaya gol nagu filan waad haysatiin oo waliba gulkaad ku nooshin Ethiopia uu naga weyn yahay waa gul naga balaarsan wax aad madaragtay aad Djibouti ka doonaysiin yaa iska yar raggan hadday dhisi waayeen nus qarni konton sanadood sit hadday dhisi waayeen hadday bulaxaar iyo geerisa iyo marag luhaya hadday dhisi waayeen dee taas ininka nitaala laakiin ilaahay muxuu na siiyey xukun inaad gacanta ku qabatiin iyo lacag iyo daldan iyo ummaddan oo 800 kuna inaad nus qarni aad xakuntiin maanta arrintaas way dhamaatay intaa baan kaga baxayaa waxaan leeyahay walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhegaysi wacan siina sheer gareeya waana madaragtay wax loo baahnaa oo runtii maanta in laga wada hadlo miiska la soo dhigo waana mid igana qora ya igana qora walaalayaal abtaladay ciise ee Djibouti ku nool baan sheegay asal dhalan sida ciyaal iyo taglaaliyan iyo wadani 77 asal dalkeena aan xoreysano anaka noo taala Ismaaciil Cumar Geelle iyo raggaas aan ka hadlay wax kaloon ka rabna ma jirto waa xukunka nagu soo wareejiye wax kale oon ka wada hadlayna ma jiro waana mid oo digniina Faransiis Mareykan Ethiopia waxaan uga digaynaa intii na soo gaadhay eed nagu daawateen iyo China intii na soo gaadhay ummadda reer Djibouti way na soo gaadhay mar dambe xaraam bay ka tahay inaan halkaas ku joogsano marka qaarkood dhimashadu xalaal bay tahay waan wala dhimanaynaa waana sii soconnaa ya laakiin noloshan maanta Djibouti ku jirno in oo Faransiis iyo Mareykan iyo China iyo Ethiopia ay nagu sii daawadaan
حرام بكتاي صوتوا رير جيبوتي مركز إثيوبيا رت إريتريا رت سوماليا رت سوماليا رت dadka ugu daran ee ugu foolxun ee ugu qurunsan oo dhinac walba laga baabiyay haday diin tahay haday dhaqan tahay haday sharaf tahay haday dadnimo tahay wax walba wayna baabiyeen ilaahay ha baabiyeen wayna baabiyeen ilaahay ha baabiyeen ma aqbalini mana ogolin dalkeena ummadeena waxaan la doonaynaa dowladda labaad ee dhalanaysa haddii ilaahay dowladda labaad ee dhalanaysa inay qalna cas mariso wixina soo gaaray kutukaasinood on ummad kale generation kale walaal kale dad kale oo wadaniya oo citizen aan ilaa iyo caruurta aan dhiigga iyo maskaxda u gelino wadannimadu waxay tahay reer Djibouti kalgacaylku waxay tahay ilaahay ka cabsigu waxay tahay hooyo aabbo ixtiraamka loo hayo walaalka ixtiraamka loo hayo dhaqanka iyo diinta ixtiraamka loo hayo ilaahay na gaarsiiyo laakiin maanta waad arkayseen shalay tole ismaaciil cumar geeloo kule qoomaluudku aqalka gudihiisa wuu ku ciyaari karaa wuxuu danuu samayn karaa waa ninkii arkaya raggii transgerka ee jan xuquuqda dumarka ayay daafacayaan riwaayadu hada jones jean adu haysta ee sharka jonka waa ka tajoore la geeyey ee canfartu maaragtay saxabka u tumaayeen canfartu waa iska bihayn moogta kuwa Djibouti jooga maaragtay tajoore badna way cabsoonayaan laakiinse waxaa loo geeyey transgenderkii xuquuqda u doodayay oo riwaayada dumarka maaragtay xuquuqda loo soo celinaya laakiin reality maxay ahayd waa ninkii arkayay calanka uu qoorta ku haystay ninkii canfareed iyo riwaayadii ka socotay yaana ogolaaday yaana waday ismaaciil cumar geelle yaana ku soo wada cali sabiix iyo dakh iyo Djibouti wax walba waa isaga laakiin ilaahay baa ka hadlisiyey ilaahay baa khashifay inuu shalay toole inuu cadaan yaraa qoomaluudku Djibouti waa fasax ilaahay baan ka hoos galnay ilaahay yaan ka hoos galnay ilaahay hanagu gargaaro inaan dalkayga iyo ummadeeda sumcadeedii diinteedii dhaqankeedii inaan u soo celino oo si daacada aan ugu shaqayno waa bilaahi tawfiiq dhagaysi wacan sheer gareeya walaal
aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin sheergareeya halkan markaan ka saaro youtube-kaan nii gelinayaa beeshkaygana sheergareeya waad ku mahadsantihiin khayro khayraad ilaahay guula ka dhigo guul ummadda reer jabuuti wabilaahi towfiiq merci infiniment salaamu calaykum